madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa waxa uu daafuray shirka toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka kulmiye madaxweynaha oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu hoosta ka xaqiiqay waxyaabaha keenay kala shakiga iyo waliba sidoo kale in Somaliland ay ka gaabiso xidhiidhadii ay lahayd hay'adaha qaramada midoobay ee qaybta ka mashaariicda horumarinta Somaliland ka fuliya Muuse Biixi oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in Somaliland aanay marna u dood qaadan doonin qadiyadda gooni istaagga ay hay'adahaasi faraha la soo galaan hadaba Maxamed Cumar Daariq ayaa qodobkani magaalada Hargeysa ka soo diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa maanta daafuray shirka toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye kaasi oo ka furmay magaalada Hargeysa isla markaasina lagu doortay hoggaan uu golahaasi yeelan doono muddada 5 sano ee soo socda iyadoo sidoo kale lagu ansixiyay xogayaha guud iyo xubnaha guddida fulinta ee xisbiga kulmiye kuwaasi oo soo magacaabay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana ugu horeyn madasha shirka la wareegay madaxweynaha Somaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaanu xubnaha shirka ka qayb galayay uu hor keenay in Ibrahim Axmed Raabi uu u magacaabay inuu noqdo xogayaha guud ee xisbiga kulmiye iyadoo xubnihii madasha fadhiyay ee golaha dhaxana ay cod aqlabiyad ah ku taageereen shirka galayna maanta si ay kala horeeyaan marka hore waxaynu dooranaynaa xogayaha xisbiga ka bacdina waxaynu dooranaynaa gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha xisbiga golaha dhexe hogaamin doona 5 sano ee soo socota waxaynu ansixi doonaa marka inta la doorto ku xiga guddigii fulinta saddex hawlood baynu maanta geli doonaa haddii la yiraahdo si ay kala horeeyaan xubnaha sharafta leh ee golaha dhexe xogayaha xisbiga oo ahaay jagal loo tartami karo oo xulideedana inuu soo jeediyo qofkii loo xulo gudoomiyaha loo xilsaaro sharcigu u xilsaaray gudoomiyaha xisbiga markii aan eegay talo badanna sameeyey waxaan soo jeedinayaa oo u soo jeediyay xilka inuu qabto 5 sano ee soo socda mudane Ibrahim Axmed Raabi xubnaha sharafta mudan ee golaha dhexe xisbiga kulmiye waxaan ka codsanayaa inay ansixiyaan magacaabidda Ibrahim Axmed Raabi inuu noqdo xogayaha guud xisbiga kulmiye 5 sano soo socda intii oo gacanta taagto gacan dhaqso unanimous ku qaaday hambaliyo intaasi wixii ka dambeeyay waxa shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ay doorteen gudoomiyaha golaha dhexe gudoomiye ku-xigeenka iyo waliba xogayaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee hogaamin doona muddada 5 sano ee soo socda taasi oo gudoomiyaha golaha dhexe loo doortay xildhibaan Maxamuud Jaamac Warfaa halka gudoomiye ku-xigeen loo doortay Cali Maxamed Cali halka xogayaha golaha dhaxana loo doortay Mustafa Maxamed Yunis waxaanay xubnaha golaha dhexe ansixiyeen 31 xubnood oo noqon doona guddida fulinta ee xisbiga kulmiye kuwaasi oo 25 kamid ah uu soo magacaabay madaxweynaha Somaliland halka 6 xubnood ay noqon doonaan hoggaanka xisbiga waxa iyaduna aynu ansixin doonaa maanta oo soo jeedin doonaa shir gudoonka golaha dhexe oo ka kooban gudoomiye ku-xigeen iyo xogaye waa jireen dad badan oo sharaxnaa iyo qaar in badan soo kaabingarinayba laakiin sida kulmiye inta badan oo caadada markii la iswareystay la isku dhuqduqday waxa la isku qanciyay 3 magac ee sheegi doono oo hore loo soo hayay xilka waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo halkan uga mahadnaqo Cabdiraxmaan Dheere xildhibaan Cabdiraxmaan oo in badan kaambeynka ku soo jiray hawshaana soo gaday juhdi badan hase yeeshee aan ka codsaday inuu arinta maanta u daayo gudoomiyaha hadda xilka hayo iga aqbalayna waanu mahadnaqay waxaan codsanayaa 3 shir gudoonkii hore ahaa gudoomiye ku-xigeenka iyo xogeeyeen halka yimaadaan waxay la tahay wajiyada ku cusub maaha Maxamed Jaamac Warfaa Cali Caliyow Maxamed Cali labada Cali waa lagu celiyay Cali Caliyow iyo Mustafa marka waxaan soo jeedinayaa inta oo gool Maxamed Jaamac Warfaa inuu noqdo gudoomiyaha golaha dhexe 5 sano soo socda gacantaaga waxay la tahay waa la isku raacsan yahay unanimous dadkii waa maadsantii
inta lagoon ku-xigeenka inuu noqdo 5 sano soo socda gudoomiyaha golaha dhexe cali caliyow gacanta taagto waa unanimous xogayaha golaha dhexe hufan ay u doorteen mas'uuliyiinta hogaamin doona xisbiga kulmiye waxaana mas'uuliyiinta la doortay kula dardaarmeen inay xilkooda u gutaan si habsami leh isku dardaarana waxa weeye xisbinimada inaynu ilaalino oo sida aynu sharafta leh magaca leh ee aynu ku dooranay xubnihii inagoo aan buuq iyo hadal jirin waxaan aad u hambaliyeynayaa dadka ka soo qayb galay naga dhaxeeya ama waxa qore aasaaskeennu yahay waxa weeye inaynu ilaalino midnimada xisbiga ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa ku dheeraaday waajibaadka iyo mas'uuliyadda golaha dhexe ee xisbiga kulmiye saaran iyo sida ay tiirdhaxaadka ugu yihiin howlaha xisbiga isagoo hoosta ka xariiqay in shaqooyinka hor yaalla golo ahaan ay yihiin kuwa aad u ballaadhan dambe hay'adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimciyada qurubaha ka dhaxaysa UN-ga hay'adaheeda ay ka mid yihiin hay'ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayer dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oo nu samafal fidinay hay'ado badan oo ka mid ah sanadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboonayn qarannimada Soomaaliyeed oo ah inay fuliyaan oo raacaan amarada laga siiyo filla Soomaaliya ee dawladda iyagoo ay ilaaliyaan ay mushaarka ka bixiyaan ee iyagoo sidii ilmo yar oo dhashay occupation-ka lagu hayaa ayay amarada qaataan markaasay soo gudbiyaan Soomaaliland ku dhaqmaan